wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dibadejinta ee Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboose iyo wafdi uu hogaaminaya ayaa xalay fiidkii soo gaaray magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco taasoo si diiran ay ugu soo dhaweeyeen madaxda gobolka kan degmada Cuqaasha iyo waxkaradka gobolka xaflad casho sharaf ah oo wasiirku habeenkii xalay ahaa ugu sameeyay hotel barwaaqo ee magaalada Burco haldoorka gobolka Togdheer ayaa lagaga hadlay baahiyaha haysta bulshada gobolkan Togdheer iyo sidii xukuumadda iyo shacab gacan uga geysan lahaayeen dadka abaaraysan ugu horeyn wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dibadejinta Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboose oo ka hadlayay howlaha safarkiisa ee gobolada bariga Soomaaliland ayaa sheegay in safarkiisanu yahay mid uu ugu kuurgalayo xaaladda iyo duruufaha haatan haysta dadka gobolada bariga ku dhaqan waxa kale oo wasiirku ka hadlay sida ay muqaddaska u tahay midnimada iyo iskaashiga dadka reer Burco taasoo ku tilmaamay inay tahay kaliya ay ku gaari karaan jidka horumarka isagoo xuseynay xukuumad ahaan si gaar ah u qiimeyn doonaan sida gobolada Soomaaliland u kala baahi badan yihiin ma haboona in shacbigeena isjecel oo midka oo isku qoyska in laga kala dhigo in shacbiga la fuqoqay in maalintii doorasho joogtana loo baahan yahay maalinta kalena la nacayo shacbiga waa kaayagii dawlad qalaad ma laga heli lahaa inteena jeebkooda inaan gelino dad kale u gurmano miyaa laga heli lahaa waxa weeye Soomaaliland waa hal magac ma kala lahaa itaalkeeni oo dhanna waxaan isku geynay xad gudihiis iyo xad dibadiis intii itaalkeena inaan u gurmano ummadeena waan loo wada gurmada taa marka cuqdada meesha laga saaro waxba lama kala harin waxa soo haray berigii hore xukuumadihii Soomaaliland waxa laga yaabaa iyagoo daacad inay culays ka saareen mis walba markay tagaan inay yiraahdaan na itiraaf maanta caalamku iyo maamulkeedu waxaan isla afgaranay in horumarka wax nagala qabta nolosha wax nagala qabta shaqada wax nagala qabta inay iyadu dariiqaas iyo dariiqa itiraafka nageeyeen waxa kale oo isaguna kulankaasi ka hadlay agaasimaha waaxda amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Cali Daalin waxaanu tilmaamay in saxaafadda maxalliga ee Soomaaliland ay ka been abuureen safarka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland kuwaas oo ku tilmaamay inuu campaign ka dhan ah furashada urur siyaasadeedyada uu ka wado gobolada bariga waxaanu ku tilmaamay warkaasi inuu yahay mid aan sal yaraato lahayn waxaanu intaasi ku daray agaasimuhu maruu ka hadlayay waxa ay safarkoodani ku soo arkeen ayaa waxa uu inay jirto baahi ballaarani isagoo xuseen ay 3 gaari ugu deeqeen maamulada degmooyinka Caynaba Garadag iyo Celaf Weyn kuwaas oo tilmaamay inay ka muuqatay baahi weyni sidoo kale intii uu socday kulankani dhexmarayay wasiir Gaboose iyo waxkaradka Burco waxa kale oo halkaasi ka soo jeediyay baahiyaha gobolka Togdheer salaadinta Cuqaasha iyo qurbajooga gobolka kuwaas oo qaarkood ay ka hadleen xaaladda abaareed ee gobolkani iyo sida guddiga abaaraha ee heer qaran aanay kaalmo u gaarsiinin dadka ku dhaqan dhulka Ethiopia hormay dhacday ama Mareykan aynu tagno ama Imaaraadka ama Yurub ama meel kale inaynu nidhaahno waxaynu cod ka doonaynaa inta xuduud ka sokaysa miyay dhacday inaynu dadkeena ugu talino ama waxa reebno in la yiraahdo xuduudka iyo gobolada waxa weeyaan walaalayaal qolada guddiga abaaraha anigu waan canaananay inta awoodeeda waynu arkaynaa ilaa madaxweyne ilaa wasiir in ay ku heelayihiin ama ku dhibaataysan yihiin sidii ay ay dadkeena ay ula hadami lahaayeen anigu waxaan leeyahay ilaahay aynu barino waxaan ka codsanaynaa annaga oo ku ixtiraamayna annagu iyadoo halka laga jecel yahay iyadoo ku jirto shakhsiyaadka Soomaaliland loogu hankoon yahay labada kadin ee cadaaladda laga galay labada faasiin waa bilayska iyo maxkamadda dadku waayo cadaalad nabadgelyo jirid mayso ixtiraam jirid maayo waxaanu noqonaynaa dad way lamida geesta kale waxa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboose intii aanu ka tagin magaalada Burco maanta tababar u furay shaqaalaha dawladda hoose ee degmada Burco kuwaasi oo maxadka tababarka hay'adda shaqaalaha Soomaaliland ay tababar ku saabsan kor u qaadida aqoonta shaqaalaha siinaysay
ugu dambeyntii safarka wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdi Gaboose uu ku yimi magaalada madaxda gobolka Togdheer ee Burco ayaa ku soo beegmaysa xilli ay guud ahaanba gobolada Soomaaliland ka taagan tahay hadal haynta furashada urur siyaasadeedyada iyadoo aanu wasiirku arrintaasina ka hadlin isagoo noqonaya mas'uulkii ugu cuslaa ee ka tirsanaa xukuumadda Axmed Siilaaye isagoo hore u shaaciyay mowqifkiisa ku aadan in la furo urur siyaasadeedyada. Maxamed Caawid Maxamed, telefishinka caalamiga ee Somali Channel, xarunta gobolka Togdheer ee Burco.